waxaan la kulanay maanta admiral cabdirasaaq diiriye faarax taliyihii ciidamada amniga ee doorashada Puntland doorashada hadda taliya soo dhamaatay bal warbixin naga sii hawlihii algaladii amni iyo sidii doorashadu u dhacday bismillaah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan leeyahay ama aad ogtihiinba in doorashadu ay u dhacday si xor iyo xalaal ah si transparency leh oo nadiif ah si amni ah ayay u dhacday nin walbana waa arkayey life bayna ahayd waxaana leeyahay waa guul lagu faani karayo doorashada hatan way dhacday oo dabcan waa u jeednay dhinaca amniga sida aad u adkayseen hadda qaybtii kala la soo diyaarin yahay masaarkii laakiin maanta waxaan arkaynay ciidamadii oo wadadii meel walba taagan oo gaadiidkii la baarayo oo dadkii isha lagala soconayo hawlgalkaasna maxaad naga siinaysaa warbixin hawlgalkaas waa mid amniga lagu xaqiijinayo waa mid loogu diyaar garoobayo calaamasaarka madaxweynaha waa mid normally ah yani ammaanka dalka in laga shaqeeyo waa mid gogoldhig u ah yani tilmaamaha yoolasha madaxweynaha in amniga la sugo ah annagoo fulinayna taa ka duulayna baanu hawshaa bilownay wayna soconaysaa wayna socon doontaa keliya kumana xidhna in la yidhaahdo calaamasaarka keliya ma aha laakiin waa siday u bilaabmeen insha allah waxayna ka wada bilaabmi doonaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland si aynu cadowgaas maaragtay nagu soo duulay aynu meel u saari lahayn insha allah billahi kariim haddan waxaa lagu jiraa waxaan ogsoonahay madaxweynuhu labada waxyaabood ugu horeeya muhiimadiisu tahay amniga iyo dhaqaalaha amniga tusaale ahaan waxaa lagu jira hadda calaamasaarka sidaa sheegtaa soo diyaarinaysaan kadib maxaa qorshe idin yaalla iyo fariinta u diraysid ciidamada waa dhab yani fariinta madaxweynuhu inay amniga iyo dhaqaalaha ay tahay laakiin mar walba ogow dhaqaale lama soo saari karo lagamana shaqayn karo amni la-aan caafimaad lagama shaqayn karo amni la-aan oo yani arrimaha bulshada oo dhan lagama shaqayn karayo waxaasoo dhanna waxaa weeye cadowgu ayaa qorshuhiisu wuxuu yahay in si aan horumar loo gaarinba marka koowaadba amniga la khalkhalgeliyo sidaa darteed number 1 number 2 number 2 3 yani priority-ga waa amniga wey amniga in xoogga la saaro haddii amnigu uu hagaago waxa weeyaan wax walba si degan oo horumar leh bay u soconayaan ujeeddo kasta oo laleeyahay markaa waa la gaari karayaa sidaa darteed waa inaynu taargetka koowaad ka dhigno amniga xaqiijino yani tilmaamaha madaxweynaha biidnillahi alkariim admiral taliyihii ciidamada waxaa tahay badda haddana doorashadii oo dhanba amniga ka shaqeynaysa marka xilkan goormaad sidaa usii haynaysaa hawsha kulley ciidanku ama bad ha ahaado ama beri ha ahaado ama boliis ha ahaado ama daraawiish ha ahaado ama military ha ahaado dhammaan waxa weeye waxa laga shaqaynayaa waa xaqiijinta amniga deegaanka wey ama dalka wey sidaa darteed mar walba anigu qayb baan ka ahay baarti baan ka ahay marka amniga laga shaqaynayo waxaan iga khaas keligay iya maaha waa wax yani camal jamaaci lagu qabanayo oo amniga dalka lagu sugaayo marka aniga iyo ciidankaygu inta loo baahan yahay inay amniga caawiyaan ka shaqeeyaan meel kasta iyo goob kasta oo looga baahdo diyaar baan nahay aad baa mahadsantahay admiral cabdirasaaq maxaa ku daraysaa aan rabaa in uga mahadceliyo dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay amniga sugitaankiisa xilligii doorashada ciidamadaas isugu jiray ciidanka BSF-ta BMBF-ta booliiska nabadsugidda ilaamaha bulshada haweenka dhalinyarada culimaadudiinka dhammaan dadka reer Puntland waxaan ugu hambaliyeynayaa waad xaqiijiseen himiladii aad lahaydeen ee ahayd in يعني لجارو إن سن نظيفة وحر حلالة ليسكو دورتو سي أمنين وقول دعوة دمانتين وعيدين همبليانيا واحد نوغاتان هاولي مدمان هاولي هدا يسوعتا إنا وحان ديسو جيدينيا إنا تكقيب قاتان أمنية دلكينا ساسة هرمر كوالي كرتا وبالله التوفيق السلام عليكم admiral cabdirasaaq diiriye faarax aad baan kaga mahadcelinayna fursad aan siisay aad baa mahadsantahay DMI